الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي على سود لبادة وحان إذن سو قدبنا يا قصة جعيل أو مقعدو يهي جعيلك يا مصنع ويلي قبر أيا جامعات ده هل كليد وذا ديغن جري gabadhii wiilka ayay aad u jeclayd balse waa ay ka xishoonaysay oo way ka baqaysay inay jecelkeeda u sheegato maalmaha ka mid ah ayaa mid ka mid ah macallimiinta jaamacadda waxa uu ardayda u diray assignment wuxuuna isu raaciyay laba arday si ay isula diyaariyaan nasiib wanaag gabadhii waxa ku aaday wiilkii ay jeclayd wiilkii iyo gabadhii waxay bilaabeen in casharkii loo diray isla diyaariyaan casharkii markii ay dhameeyeen ayaa wiilku waxa uu go'aansaday inuu gabadha dareenkiisa la wadaago oo uu jaceylkiisa u sheegto balse uu ka laabtay oo wuxuu isiri sidee baad ku guursanaysaa adigoo aadan haysanin shaqo iyo guri waa ay kala tageen wiilkii iyo gabadhii balse mid walba midka kale ayuu alla ka bari jiray inuu helo muddo kadib gabadhii ayaa hooyadu waxay ku tiri gabadheedii wiil ayaa ku soo doonan rabo gabadhii waa ay murugootay markii uu wiilka yimid waxa uu noqday midkii ay iyada jeclayd farxad darteed ayay la ilmeysay jaceylkii aamusna waxa uu noqday mid guulaystay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaal fadlan muuqaalka like noo saara ee na shargareeya